السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haweeney jaajuusad ahayd oo wareysi bixisay ayaa waxay tiri haweenku xirfadda jaajuusnimada aad ay ugu fiican yihiin gaar ahaan hooyooyinka maadaama ay shaqooyin badan isku fulin karaan ogsoonna yihiin dareenka aadamaha cid uga fiicanna ma jirto. haddaba muuqaalkeena maanta waxaan idinkula wadaagi doonaa shantii haweeney ee surdoonka adduunka ugu caansanaa. fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena kusoo bir adigoo subscribe garanaya sidoo kalena gambaleelka furo. kaalinta shanaad waxaa ku jira Mata Hari. waxay ahayd gabar khatar ah waxayna ahayd gabar qoobka ciyaarka ama dhaansiga ku shaqaysata. waa haweeney daaj ah waxayna ku shaqaysan jirtay jaaska ama qoobka ciyaarka maadaama ay Mata u ciyaari jirtay qaab iyadoo ku dhow inay qaawan tahay. waxay soo jiidatay indhaha dadkii ku noolaa magaalooyinka Berlin, Vienna, Madrid xilligii 1905 waxaana la soo wariyaa inay xiriir la yeelatay siyaasiyiin iyo askar military oo aad u fara badan. sanadku markuu ahaa 1914 iyo bilowgii dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa Mata u sahlay inay si fudud ugu safarto Yurub dhexdeeda maadaama ay xargo badan isugu xirnaayeen. qaababkii ay wax u jaajuusi jirtay ma cadda, laakiin sanadkii 1917 ayaa dowladda Faransiisku waxay ku eedeeyeen inay u shaqayso Jarmalka oo markaas xurguf dagaal ka dhaxaysay iyagoo isticmaalaya xog ay ka soo heleen Ingiriisku qarab u lahaa. Mata waxay la shaqo bilowday Faransiiska iyo Belgiumka, laakiin Faransiiska ayaa wuxuu ku soo eedeeyay sanadii 1917 inay noqotay double agent ama laba wajiile iyadoo xog sir ah u gudbisay Jarmalka. waxaana lagu xukumay dil toogasho ah sanadii 1917 iyadoo jidha 41 sano. kaalinta afraad waxaa ku jira Nancy Wake oo loo yaqaano jiirkii caddaa ama White Mouse, mid ka mid ah haweenka ugu caansanaa uguna khatarsanaa dhanka jaajuusnimada dagaalkii labaad ee adduunka xilligaas. waxaana loo yaqaanay White Mouse oo micnaheedu yahay jiirkii caddaa maadaama ay ahayd haweeneyda tanu ku tiri kuteen ama sheeko aan la hubin inay jirto iyo in kaleba. waxay ahayd mid la dul dhigay lacag dhan 5 milyan oo lacagta frankiga ah. intii ay sirdoonka ahayd Nancy waxaa jiray xilli ay baaskiil ama bushkuleeti ku safartay masaafo dhan 300 oo mayl gaar ah fariisimaha ciidanka Jarmalka maadaama uu qalabkeedii wax gudbin jiray ka lumay. markii dambena Nancy waxay u baxsatay dhankaas iyo Britain iyadoo loo dilacsiiyay madaxa fulinta hawlgallada khaaska ah. kadibna diyaarad ayay baarshuud kaga soo boodday magaalada Auvergne halkaas oo ay hub saanad iyo xog muhiim ah kala wadaagi jirtay ciidamadaas. waxayna ka qayb qaadatay weeraradii lagu beegsaday ciidamadii SS-ka iyadoo lagu dilay 1400 askari iyo ka badan. intay ku guda jirtay shaqadeeda waxay gacanteeda ku dishay mid ka mid ah generaaladii SS-ka iyadoo ka cadnoo fashiliyo weeraradeeda. markii uu dagaalkii labaad dhamaaday waxay Nancy ogaatay in ninkeedii uu geeriyooday kadib markii la isku dayay in laga soo saaro xogta haweeneydiisu meesha ay ku nooshahay. kaalinta saddexaad waxaa ku jira haweeneyda la dhaho Ethel Rosenberg. waxaa dilay dowladda Mareykanka maadaama ay xog ku saabsan nuclear-ka u gudbisay Ruushka. Ethel iyo ninkeeda Juliet waxaa lagu dilay kursiga korontada wadankaas Mareykanka sanadku markuu ahaa 1973 maadaama ay gudbisay xog aad xasaasi u ah kuna saabsan arrimaha nuclear-ka. waxay dowladda Mareykanku ku eedeeyeen haweeneydan iyo ninkeedaba inay dirtay fariin ay ku qortay xogta nuclear-ka iyada iyo shabakadii wararka u diriyay inkastoo ay ku adkaysatay inaysan wax dembi ah galabsan. waxaa ku markhaati furay laakiin walaalkeed iyo dumaashigeed taas oo sababtay in jeelka la geliyo laguna dilo kursiga korontada sanadkii 1973. kaalinta labaad waxaa ku jira Anna Kerman gabadhii timaha casayd ee Ruushka ahayd. waxaa jeelka la geliyay sanadii 2010 iyada iyo 9 qof oo kale oo lagu eedeeyay inay ka shaqaynayeen inay xogo aad u muhiim ah xadeen. Anna waxay ahayd qalyahanad IQ-geeduna ugu gaarsiisanaa 162 oo ah mid aad u sareeya. Anna waxay ku dhalatay magaalada Volgograd ee koonfurta Ruushka waxayna guursatay sanadkii 2001 nin British ah laguna magacaabo Alex Chapman halkaas oo ay ku heshay jinsiyadeedii labaad ee Britain-ka ahayd. markii ay kala tageen ninkeedii waxay u soo wareegtay magaalada Manhattan halkaas oo ay ka bilowday inay xogo muhiim ah ku soo dirto Ruushka. waxaana lagu xiray sanadii 2010 wadanka Mareykanka halkaas oo dib lagu musaafiriyay wadankeedii Ruushka. waxayna wadanka ka heshay magac iyo boonboonin iyadoo sidoo kale ka soo muuqatay majalladaha caanka ee Ruushka. 2012 waxaa la sheegay inay Anna ku sigatay inay daban u dhigto mid ka mid ah golihii wasiirada madaxweynihii Barack Obama. kaalintana koowaad waxaa ku jira Josephine Baker. waxay xog ku soo gudbin jirtay iyadoo wax ku qoraysa khad aan la arag warqadeeda muusiga. waxay ahayd Amerikaanad asal ahaan Faransiis ah qoobka ciyaarad jilaa iyo sidoo kale ujeedo xuquuqda aadamaha. waxay Paris ku soo degtay sanadii 1925 iyadoo ka timid Mareykanka iyadoo halkaas ka bilowday shaqadeedii qofka ciyaariska.
markuu dagaalkii labaad ee adduunka bilowday waxaa shaqaaleysiiyey dowladda Faransiiska oo ay xog uga soo daldali jiray Jarmalka iyadoo iska dhigaysa wariye madax bannaan. waxay fursad u heshay inay xaflado badan qunsuliyado iyo goobo kale oo muhiim ah gasho maadaama ay ahayd qof caan ah. dowladda naasiyiintuna waxa ay siiyeen xorriyad ay ku mushaaxdo waddanka iyadoo warka si darandoori ah ugu soo gudbin jirtay khadkii ay muusiga ku qori jirtay oo aan la arag waxayna u soo gudbin jirtay waddanka Faransiiska. markii dagaalkii dhamaaday waxay ku laabatay Mareykanka waxayna ku guuleysatay abaalmarinta ugu doodidda xuquuqda aadamaha waxayna khudbad ka jeedisay goobtii Martin Luther King Jr. ka soo jeediyay khudbaddii ahayd I have a dream. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe garay sidoo kale la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.